Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay maqaaxi ku taalla xaafadda Kaawagoday ee degmadaasi, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa. Wararka ayaa sheegaya in xilligaasi maqaaxida ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo la sheegay inay halkaasi ku qayilayeen. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan ku dhintay ugu yaraan 1 askari, iyadoo ay ku dhaawacmeen 3 kale oo ka mid ahaa askarta ku sugnayd goobtaasi. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya kuwaas oo baaritaano kooban ka sameynayay xaafadda Kaawagoday ee magaalada Muqdisho. Dhanka kale ma jira ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada Dharkeenley oo ku aadan qaraxaas iyo howlgalka xigay. Al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan, waxaana ay shaaca ka qaaday inay dishay kuna dhaawacday askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya.